shirka madasha wadatashiga qaran waxa uu furmay iyadoo wali uu maqan yahay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland lafta garan oo muddo siyaasadda dawladda Soomaaliya ay aad u kala fogaayeen ayaa yimid dad badan ayaa indhaha ku hayay madaxweyne lafta garan in Muqdisho uu imaanayo in kale sababtuna waxa ay khilaafkii soo kala dhaxgalay isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya balse waxa dhaboobay heshiiskii horudhac ahaa oo u dhaxdhigay General Mahad taliyaha asluubta Soomaaliya shirkan waxa goobjoog ka ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho shirka waxa lagu dul falanqeyn doonaa inta uu socdo hanaanka doorashooyinka dalka uu wajahayo iyo sidoo kale doorashooyinka maamulada balse dad badan ayaa aaminsan in shirka madasha wadatashiga qaran ujeedka ugu weyn ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isugu yeeray madaxda inay tahay sidii guud ahaanba doorasho isaga uu rabo uu ka qabsado guud ahaanba dalka balse madaxda maamulada ayaa iyagu waxay ku jiraan difaac aad u adag oo ay ka baqayaan hadii ay ku raacaan Xasan Sheekh waxa uu rabo in bari markii uu guuleysto uu kaga baxo ballanka madaxweynaha maamulka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen ayaa ah siyaasiga ugu horeeya ee isagu aragtidiisa diiday balse marka la eego madaxda kale iyagu wali aanan hadlin ayaa waxa la leeyahay waxay indhaha ka fiirinayaan hanaanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo waxa uu la soo shartago shirkan suuragal ayay noqon kartaa in lagu kala boodo oo qodobada qaar kood la isku diido waa sida Puntland ee wali ay ku maqan tahay oo ay ku sheegtay in wax raali la isaga yahay miiska la wada keeno oo la falanqeeyo dooda ugu adag waxay dhexmari doontaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud marka la eego iyagoo isku qabsan doona hanaanka doorashada lafta garan waxa uu rabaa in mar kale isaga uu soo laabto halka Xasan Sheekhna uu rabo in lafta garan si uu qanciyo oo kursiga uu ka bedelo Axmed Madoobe marka la eego ma aha nin meel u socda oo wali waxa uu rabaa in kursiga uu ku sii fadhiyo siyaasiyiinta Jubbaland iyagu waxa ay doonayaan in isbedel uu dhaco balse Xasan Sheekh waxa la isweydiinayaa Axmed Madoobe ma ka banayn doona kursiga hadda uu fadhiyo muddada dhowrka sano mise mar kale ayuu ku soo laaban doonaa waa su'aal u baahan in dadka ay ka jawaabaan maamul walba waxa uu rabaa in isaga uu ku soo laabto kursiga Qoorqoor iyo sidoo kale Cali Guudlaawe waxa ay doonayaan in iyaguna mar kale ay soo laabtaan inkastoo deegaanadaasi marka la eego ay maamulaan labadaasi madaxweyne ay dawladda u furan tahay waxay awoodaa dawladdu in ciidamo ay dul dhigto oo doorasho iyadoo ay rabto ay ka qabato balse deegaanada Koonfur Galbeed waxa adag in doorasho Xasan Sheekh uu rabo ay ka qabsoonto maalmo ka hor waxa la isla dhexmarayay in baraawe doorashada lagu qabto garabka mucaaradka balse haddii taa ay dhacdo waxa fashil uu ku imaanayaa hanaanka Xasan Sheekh uu wax u rabo Axmed Madoobe waa iska caddahay in doorashadii uu rabo uu isaga qabsanayo laakiin su'aasha dul hoganaysa waxay tahay Xasan Sheekh ma waxa uu sameyn doonaa rabitaanka maamulada oo waxa ay ku heshiin doonaan inay wada joogaan mise waxa uu ka dhaadhicin doonaa in kuraasta ay baneeyaan oo dad bedel la keeno aragtidiina bartoos inoogu reeba